السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن عبد العزيز وإذن الله السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan meeshan ka falanqeeyo waxyaabaha ay Soomaaliya ku burburi la'dahay. Marar badan ayaa isku dayay Soomaaliya in la burburiyo oo dhammaanteed dhulka lagu daro, laakiinse maanta ayaan caddayn doonaa. Anaga dhan waxaan ognahay in waddankan dad badan ay soo gumaysteen oo ka mid yahay Ingiriiska iyo Talyaani iyo dad badan. Ingiriiska markuu dalkiisa u laabtay waxaa la weydiiyey qarniyoodii meel walba oo tagtay inaad burburiso maahine kuma soo laaban jirnay, maxaa dhacay, maxaad uga soo laabato Soomaaliya ayaa la yiri. Markaasuu wuxuu yidhi Soomaaliya 3 walxaato ayaa difaacaya, 3daas intaad haysatana cid burburin karta haba yaraatee ma jirto. Waxaa la yidhi 3daasi waa maxay? Midka hore wuxuu yidhi Qur-aanka waaye, kitaabka Ilaahay intay haystaan lagama yaabo in la baabi'iyo. Midda labaadna waxa waayuu yidhi qabuuraha dadka wanaagsan intay ugu duugan yihiin meeshaas barakadooda iyo nafaxaadkooda Ilaahay ku badbaadiya. Midda saddexaadna waa geela. Soomaaliya intay geel iyo kutub iyo qabuurahaas barakeysan ay haystaan marnaba lagama adkaan karo. Sababta noo bayaan yaa la yidhi. Wuxuu yidhi mar walba ay la isku dayo in lala dagaalamo oo meel lagu gambado waxay haystaan oo dhahay geelkaasna wuxuu biyaha moogaan karaa 30 biri. Muga 30 biri adna qof meel ugu jiri karto waa may 30 biri qof meel uguma jiri kartid, waxaa ku qasban tahay in aad iska dhaafto oo aad ka soo kacdo. Sidaas darteed way kala guulaysaan. Teeda kale haddii aad marti inaad burburiso mar walba waxay leeyihin Ilaahayow hebel waa wanaagsan, anaga dad wanaagsan ma nihine hebel barakaadkiisa ilaa wax noo siiba ogeen Ilaahay iyo dadka wanaagsan ku tawasulaan. Sidaas darteed Ilaahay wuu badbaadiya. Tan saddexaadna waa qur-aanka Ilaahay oo mar walba waxay baraarujiyaan dadka in ay qur-aanka iyo kutubada Ilaahay ay ku dhaqmaan. Muga 3daas Soomaaliya hadda maanta maxaa ka hela? Kaliya geela ka hela. Kii qur-aanka ah waxaa lagu bedelay federaal. Kitaabka Ilaahay ku dhaqmi jirnay maanta waxaa nagala burburiyey federaal lagu bedelay. Qabuurihii wanaagsanaa ee dadka wanaagsanaa ku jiri jireen dadaaba loo soo diro dhahayo waxaana waa kufri iyo hala faago. Muga waxaan oranaynaa haddii ay kufri yihiin maxaa noogu caddeyn la'dihiin inay kufri yihiin, anaga waa inaan caddeyn karnaa. Teeda kale kutubka Ilaahay in lagu dhaqmo maxaa diidayo markii federaal la aasay. Federaal waa nin xun oo gaala uu soo dejiyey, laakiin kani waa kutubka Ilaahay ayaanu noogu talagalay in aan isku xukunno. teeda kale geela maanta waxa kaliya noo soo haray oo aan ku badbaadayno ayuu noqday. Muga aan ku dadaalno in aan Ilaahay u laabano oo kutubkeena aan ku laabano. Sidoo kale federaal iyo waxyaabahaasna ma anfacayaane federaal aan ka tagno. Walaalayaal federaal aan ka tagno. Dadkaan ahlu qabuurka ku been abuuranayna aan iska dhicino. 3deen haddii aan soo ceshino Soomaaliya way soo laabanaysaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sii faafi, sheer garay, walaalaha kala sii gaarsii. Aad iyo aad ayaan idin jeclahay.